hilmaan baa ku imanayo sharcigii ilaahay baa la iloobayaa xuskii ilaahay baa la iloobayaa macsiyadii iyo wixii oo dhan baa la fudaydsanaya ila ilaahay subxaana wa tacaala waxa lagu furay abwaaba kulla shay baa loo furay xataa idaa fariqu ilaahay dhammaantood farxaan barwaaqaysi ladnaan amni nabadgeliyo raxmadii ilaahay wax walibaa noqda wafiir wax dhibo ay dareemayaan hayla jiro xataa idaa farixuu bimaa uutu waxaa xagga alla ka yimid markay sidaa ugu farxaan akhadnaahum baqta ilaahay wuxuu leeyahay si kada aan baan ku qabanaa faidaa hum mublisuun waba iyagoo quusa haddeed waxayna filayn unbaa meel lagaga soo dilaa faqutica daabiru lqawmi aladiina dalamuu kuwii daalimiinta ahaa dabargo' baa ku dhaca walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin axbaabii wa ikhwaani fi llah wuxuu alla ka warramaya dad un dhibaatooyin ay ku dhaceen rafaad badan mutay ilaahay subxaana wa tacaala u soo noqday xagga alla u soo noqday markay rafaad badan muteen rafaadkaasi ha ahaado ku lagu rafaadiyey nicmad iyo albaabadii barwaaqada oo loo furay ama ha ahaado albaabadii dhibaatada oo loo furay labaduba waa iska rafaad weeye inkastoo dadku inta badan rafaadka u yaqaanaan taa dhibaatada ah kadib ilaahay subxaana wa tacaala u soo noqday ma jirin buu alla leeyahay subxaanahu wa tacaala ummad dhibaato la tusay oo dhibtii la tusay ka soo noqotay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala isku dhiibtay fa nafacahaa iimaanuha oo ilaahay subxaanahu wa tacaala isku dhiibkii iyo soo noqodkii iyo sharcigii ilaahay ay u soo noqdeen rasuulkii ay marka hore diideen ay ku soo noqdeen diintii ay marka hore gacan bidixeeyeen ee midigta ku qabsadeen ilaa qowma yuunus buu leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala qowmkii nabiyullaahi yuunus calayhi salaam lamaa aamanuu markay xagga alla u soo noqdeen ay ilaahay isku dhiibeen ay taa'ibiin noqdeen kashafnaa canhum cadaaba alkhis cadaabkii dulliga ahaa ee la saaray ilaahay wuxuu leeyahay waan ka dulqaadnay fi lxayaati addunyaa intay adduunyada joogeen baan ka dulqaadnay buu leeyahay wamatacnaahum ilaa xiin waktina waxaa siinay buu leeyahay muddana inay raaxaystaan ee adduunyadu kollay waaritaan male ilaahay muddo ku raaxaystaan oo raxmad iyo naxariis iyo barwaaqa ku jiraan wa tilka sunnatullaahi taasina waa sunnada ilaahay oo sunanka ilaahiga ay ka mid tahay markay dadku alla u soo noqdaan inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ciqaabka iyo cadaabka iyo dhibta iyo rafaadka inuu ka kor qaado adduunyada intay joogaan aakhirana ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ku siiyo xasanaadkooga ha ku siiyo qoomkaasoo alla inooga qisooday laakiin alla subxaanahu wa tacaala wuxuu sheegayaa qoomam kale oo ummadihii adduunyadan soo maray ka mid ahaa oo lagu qabtay dhibtii ugu adkayd lagu qabtay 9 aayaad 9 calaamo oona kala dhicin la isku dabageliyey abaaraa la isku dabageliyey abaarihii markay waxba ku soo noqon waayeen baadana duufaanna la isku dabageliyey waxba way ka soo noqon waayeen yacni 9 aayaad oo calaamaad aada u fara badana waxba way ku soo noqon waayeen dafaadic buu ilaahay haddana ku salliday weelkay sidaa u qaadaan iyo biyahay dar yidhaahdaan marrax baa laga buuxiyey waxba way ku soo noqon waayeen oo waxyaalaha la doonayay inay ku cibro qaataan ay ku soo noqdaan qumal baa la saaray injir baa la saaray dad iyo dunyaba injir gashay
oo gebigoogii baa rafaadisay way soo noqon waayeen waddam biyihii baa dhiig laga dhigay waxba ina alinsaana lirabbihi lakanuud kan bani aadamka la yidhaahdaa waa ku maskax madax adag usoo noqodka xagga ilaahay mid ku adag mid inuu sharciga usoo laabtaay ku adag tahay weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay walaqad akhadnaahum bilcadaab ciqaabkaasaan ku qaadnay ummadaha fama stakaan marnaba ma soo liicin baa la leeyahay subxaanahu wa tacaala soo yar nuuxsi ma samayn istikaanadu waa nuuxsi marnaba halkoogii inay ka soo nuuxsadaan way diideen fama stakaanuu lirabbihim wamaa yatadarracuun ilaahay inay isku dhiibaanna way diideen raxmadda ilaahay inay ilaahay weydiistaanna way diideen idan markay nuuxsi diideen tadarrucii isdhiibid iyo alla bari iyo ilaahay u tawbakeen intaba markii ay ka baxeen ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay xataa idaa fatahnaa calayhim baaban daa cadaabin shadiid markaasaan ku furnay buu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala albaabkii cadaabka idaa hum fiihi mublisuun waaba iyagaa dikadib quusa dee wax walba waa lagu dayay misaalka kale waxa weye nabiyullaahi moxamed calayhi salaam markii uu ku jiray rafaadka faraha badan ay qurayshi kolba dhinac u caydhinayeen ee dhibaatada badan iyo baahidu taallay baa ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo waxyooday nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam in looga dhigo bacaadka maka siduu u dhan yahay in dahab looga dhigo nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam waxaan ku ihi laa yaa rabbi ilaahayga inuu dahab ha iiga dhigin bacaadkaasi maalin waan dhergi walaakin ashbacu yowman waajuucu yowman maalinna waan gaajoon maalinna waan dhergi maalintaan gaajooda waa ku xasuusani tadaractu ilayk ilaahay xaggaagaan sacabada usoo dhigan way soo dhiibi waidaa shamictu shakartuka waxamidtuka maalintay dhibaatada iyo baahidu itaabataan aan dhedherega iyo barwaaqada iyo ladnaanta maalintaan helana ilaahayga waan ku mahadini buu leeyahay halkaa waxaa lagaa tusayaa in qofkan bani aadamka ladnaashuhu waa uga darayo dhibaataduna ay maaragtay xasuusin tahay haddii maanta meeli ku xanuunto cidda caafimaadkaaga haysaay waayo waa allah haddii aada baahan tahay cidda aad baahidaada u sheeganaysaa waayo waa allah baahidaadu noocay doontaba ha ahaato baahi adduunye ha noqoto tu aakhira ha noqoto tu awlaadeed ha noqoto baahi maanta hadday ku hayso baahidaada ciddaad ula tegaysa eed u gudbinaysaa waayo waxaa la idhahdaa nin saxaabiya ayaa markuu masaajidka joogo aad buu allabari badnaa bay idhahdeen oo duca badan u akrisan jiray allabari fara badan nin baa marka u yimid oo wuxuu ku yidhi odhabar alle markaad masaajidka ku jirto yadaadumkaagan iyo sacabataagaagan iyo aad bay u badan yihiin dee yar baaba kugu filan waxaasoo yadaaduma iyo waxaasoo allabariya waa muxuu wuxuu yidhi aduu ilaahay maxaad weydiisataa anuu wuxuu yihi waxaan weydiistaa ilaahay subxaanahu wa tacaala cadaabtana inuu iga badbaadiyo jannadana i geeyo intaasaan weydiistaa ninkii saxaabigaa wuxuu ku yidhi anu wax kasta oon u baahanahay milixna ha ahaatee ilaahay baan weydiistaa kasta oon u baahanoo baahidayda ah xataa milix baa ugu yaro ilaahayga isii maadhaa uu yihi adiguba gacanta ku haya cid kaloo i haysaa ma jirtee idan qofka muslimkiihi markuu ilaahay isku dhiibu saxabada ilaahay u dhigto tadaruc la yimaado ilaahay subxaana wa tacaala wuu siinayaa aayaadka qur-aanka ilaahay wuxuu ku leeyahay qul man yunajiikum min dulumaati albari walbaxr
waxaad ku tidhahdaa nebi moxamed oo ummadda weydiiyo mugdiga habeenkii ku bad jooga iyo ku berri joogaba aad maraysaan ayaa idinka badbaadinaya tadcuunahu tadarucan wa khufya idinkoo ilaahay baryaya idinkoo isdhuldhigaya idinkoo maaragtay cabsi iyo qarsoodi ku jira lain anjaana min hadihi lanakunanna min ashaakiriin bay leeyihin hadduu ilaahay naga badbaadiyo ilaahayna umadaadna badbaadiso waan ku mahadnaqaynaa qul illaahu yunjiikum minha ilaahay baa idinka badbaadinaya mugdigaa iyo dulmigaa iyo ku badeed iyo ku berriba habeen iyo maalinba ilaahay baa ricaayadiisa aad ku jirtaan oo idin ilaalinaya wa min kulli karb dhib oo dhan ba ilaahay baa subxaanahu wa tacaala fayda walaqad arsalnaa ilaa umamin min qablik nabiga calayhi salaatu wasalaam baa loo sheegayaa dhibaatadii quraysheedii markay ku adkaato dagaalla badani markay nebiga qabsadeen calayhi salaatu wasalaam walaqad arsalnaa ilaa umamin min qablik فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون بلدي مرقون إلهي سسو ديبا إلهي وحليا حتى إلهي سسو ديب لهايين حق الله وصول نقول لهايين إلهي سبحانه وتعالى ما كرطان لها أمثلة بسيطة قابا نبي عليه الصلاة والسلام وحاوت من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم iyadoo ka doonaysa qof khaadimaha u shaqeeya inuu nebigu siiyo addoommadii la keeni jiray qof u shaqeeya oo waxay leedahay yaa rasuul allah dhagaxii baa gacmahay gooye bay leedahay aan ku shiidayey shuurada iyo kibista iyo wixii la sameynayay dhagaxii aan ku shiidayey baa gacmantay jaray waxay leedahay markaa waxaan u baahanahay addoommadan intoo la keeno la qaybinayo in wax layga soo gaadhsiiyo cidii shaqaysan laysiiyo wuxuu ku uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam wax intaa kaaga khayr badan ma kuu sheegaa addoon adashoo kuu shaqeeyo adduunyada korkeegaa kuugu shaqeeya wax kaaga khayr badan ma kuu sheegaa maxaa kuu diiday buu leeyahay faaduma inaad maqasho maxaa kuu diiday buu leeyahay inaad dardaarankayga qaadato xogaha wuxuu ka yar dareemay inay jeclaysanayso inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa kan addoonkii ma addoommadaa ma doonaysay waa kana ha kuu shaqeeyo inuu idhaahdo nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay wax kaaga khayr badan baan kuu sheegayaa wax kaaga wanaagsan oo adduun iyo aakhiraba ku anfaca ayaan kuu sheegayaa maa yamnacuka an tasmaci maa uusiik أن تقولي إن تراد إذا أصبحت وإذا أمسيت مركز وبريسة مركو قبل بقول عينا تراد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث إلهي يوم حريص هذا كويدي سنيا رحمة هذا ربي كويدي سنيا قلب إيه الصبح إلى الله مرضون تراد ilaaha xayiga ah ee qayuumka aho waxaan ku weydiisanayaa raxmadaada naxariistaadaan ku weydiisanayaa ilaahigayo arrimahaygoo dhan iskugu kaydubarid aslix lii sha'nii kullah ilaahu arrintayda dhammaanteed iskugu kaydubarid walaa takilnii ilaa nafsii darfata cayn ilaahigayo ilbiriqsi naftayda ha ii kala saarino taladayda ilaahu ay u sii daynin aniga taadu ha ii socoto ilaahaygo adigu i taageer ilaahu taladaada igu taageero arrimahayga ilaahu isku kaydubarid ducadaa maxaad ugu ducaysan weyday buu ilaa dardaarankaa maxaad u qaadan weyday buu ku leeyahay binta rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam ciddan nebiga wax weydiisanaysaa waayo waxa weeye faadima bintu rasuulillaahi wey waa tii awdan ugu jeclaa weeye aabba maanta inantiisa aada u jecel hadday u timaado tiraahdo wallaahi aku waxaan u baahnay shaqaalo dharka iyo ee maydha hadduu waxoogaa hanti hayo wuxuu odhanayaa ma shaqaalaadii weydiisay laba ka dhigo iyo saddex wax kuu shaqeeyaba
النبي عليه الصلاة والسلام وحكى خير بدن إن الحق إلهي عررته ما إن الحق بني آدم موصو عررته إن ترى يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شاني كله إلهي أمورها يسكوك يدبرد ويهجاج ترى ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين إلى أن نفتيدا إلى أن ترديدا هي لا قعدتها يجري نفتيدا قعدتها هذا كشرتو أنا دو تاجرتو ولا دو توستوسي سهل نقطة تضرعا وخفيا نبى سوى الله بريء يوحيني أنا الفقير إلى رب البريات أنا المسكين في مجموع حالاتي حل كستبكي باهم باها يا الله باهم نفتيدا نعفو مسو جيري كرم نفتيدا دباتك ما الدفاع كرم وليس دوني مولا يديرني عد إله إيه أديك أهين أو إبد بالي كرتا ما جرتو عد إيه شفيعة قالي كرتون أديك أهين ما جرتو نفتيدا مملكي إسكدا وحكا لا شريك لك إلهي يوم وحشريك مليه أنا في بعد ذراتك أبورك علي مخلوق علي كمدهي والفغر لي وصف باهظ وعلامة أنه الله يقال لازم مرنك بحين مركز تكيف باهم بانهي أدو سبلغ عدو باهم باتهي إلهي عدو باهنو هيد باهن الأدون نقاس وحكود عيسى يوفيكس إله السبب باهن عدو باهنو إله وأنا لها هيد باهن خلقي لها هيد باهن أريد أن أقول باهن إذا المركب في سنتو التأملات الصميصة على الكيسة بدك مؤمنين تاهاي صالحين تاهاي لما أنتم إذا كوا إلهي كحرنا هاي أو على الشيخ الرجل ابن القيم الجوزي رحمه الله وإلى إياهي وجهه أنتم السجود وأين قلبه السجود وأهل الليام له قلبه قلبه سجود يا الجوزي وجهه أنتم السجود وأين قلبه السجود ولا وحسوق هذا حديث كم سوق هذا حديث كان مسلم صوصاري ولا لا ينظر الله إلى أجسادكم إلهي سبحانه وتعالى مرنا مفيريو جسد كينا يقاب كي يسور كينا مثلا ولكن ينظر إلى قلوبكم إلهي قلبي إنه إله إنتنا مساجد كاللغو جرو ودعينا يساء وضع الله بري يساء وذا سجود سنة إلهي سبحانه وتعالى قلبي بوقيه شيخ اللويدي مع بعض العارفين وحل إلى قلبي أمي سجوده وحل نعم يسجد سجدة سجود سجودا بولا يا ولي ماذا حفر نسوق على قلبه إلى اللقاء إله إلا كل ميو إله إلا كل ميو قلبه سلا سجود يقول سجود سيقول لي من مقلب لي وإله أمر ما هنا وحنا إله أمر له وكجوك سلا وقلب إله كحرم بولي مرنا وحكى لي أين قليل أحبابي وحقصوا كويا haddii aanu labadii khudbadood ee hore kaga soo hadalay minaxii iyo dhibaatooyinkii iyo wixii ambiyadii iyo ummadihii naga horreeyeyna soo maray innaga lafteennana dhibaatooyinkaasi ama qof walba meel ay ka hayso ha u yaraato ha u badnaatee qofba meel bay kaga taagan tahay qofbana in bay u taagan tahay qof walba intay u taagan tahay فرجك إيا مفتاحة يا ماشي لقى بحيا وحوي التضرع إلى الله يا إلهي بصوت نقر إلهي يسكت الليل نور يسكت الدمنا تلدين نور دم بها إلهي مديبا خالقهم بين فرضا من كره وحل واحد منها يسرهم بين قبل كره نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة